kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena milicsiga siyaasiga oo ka baxa telefishinka madaxa bannaan ee caalamiga ah Universal xiliyadan oo kale waxaa noogu martiya toddobaadkan adna aadan Ismaaciil adna aadan dhakhtar oo kamida siyaasiyiinta waaweyn isla markaana ah gudoomiyaha isbitaalka weyn ee adna aadan hagaag dad badan oo af Soomaaliya ku hadla oo dacalada dunida ka daawanaya ayaan jecelahay bal taariikhdaada inay ogaadaan marka iyadoo kooban balno bilow وعليكم السلام أدبان سو دوينيا إذاعة أما تلفزيون كا يونيفرسال waxaan salaamayaa umada Soomaaliga ku hadasho oo dhan haday Somaliland degan yihiin iyo haday Soomaaliya degan yihiin iyo haday Djibouti ama Ethiopia ama Kenya ama adduunka daafihiisa oo dhan af Soomaaliga waa lagu hadlaayay dhamaan waan salaamaya taariikhdaydu hadaan idin ka warramo in badan baa la idin ka warramay waxaan ahay gabar ku dhalatay magaalada Hargeysa 1937 alxamdulillah aabahay aadan dhakhtar wad wada garanaysaan hooyo Maryam Yuusuf Ducaale reer Berbera ah waxaan ku soo koray Hargeysa iyo kolba meeshii aaba uu ka shaqeynayay haday tahay ceer gaabo haday tahay Berbera haday tahay Sheekh haday tahay Burco waxbarashada waxaan ka galay dalka Djibouti oo aan u hayo abaal weyn iyo mahadnaq weyn waayo waqtigii aan yaraa iskuul kama jirin dalkeena oo habluhu iskuul ay galaan may lahayn iskuulkii Burco 53 la furayna wali de waqtiga muu jirno de wiiga dambeeyay marka dalka Djibouti ayaa fursadii siiyay inaan waxbarasho aan halka ka bilaabo markaan ka imidna iskuulkii Burco ayaa la furo halkaas ayaan ardayad macalimada aan ka noqday ilaa 1954 oo aan helay deeq waxbarasho oo aan ku tagay dalka Ingiriiska waxaan ku soo bartay cilmiga horta markii hore waxbarashadii baan sii kordhiyay sidoo ogtihiin waqtiga dalkeenu wuxuu ahaa maxmiyad Britaniga ama Ingiriisa Somaliland Protectorate ayuu magaceenu ahaa waxaynu ahayn dalka kaliya ee Soomaali degan tahay ee aan mustacmarad weligood soo marin way waxa la isku khaldaa colony iyo protectorate isticmaar iyo maxmiyad iyo mustacmarad Somaliland dadka degani weligood isticmaar may arag mustacmarad may soo marin waa kelmad muhiim ah oo loo baahan yahay taariikhdu inay xusuusato waxaynu lahayn heshiis difaac protectorate ayaynu la lahayn dalka Ingiriiska markii iskuulka la furay halka waxaan ka baxay waxay siin jireen Ingiriisku deeq waxbarasho ardayda sare kaalinta sare ka gasha England baa loo diri jiray qaar Suudaan baa loo diri jiray qaar Kenya loo diri jiray qaar Tanzania loo diri jiray waxaan anigu nasiib u helay inaan ka mid noqdo dadkii loo diray England loo diray waxaa ka mid ahaa dad badan oo garanaysaan madaxweynaha maanta Somaliland Axmed Maxamuud Siilaanyo waxaa ka mid ahaa Allah yarxamo madaxweynihii ugu horeeyay ee dal Soomaali degan tahay madaxweyne u noqda Allah yarxamo Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxaa ka mid ahaa dadkii deeq waxbarasho dalka Ingiriiska ku tagay dad badan oo dadka madaxda ahaan jiray oo dhan wada garanaysaan Allah yarxamo Xasan Kayd Allah yarxamo maxaan ku iraahday qaybe Allah yarxamo dad badan baa jiray oo halka wax ku soo bartay Cawil Xaaji Cali Ducaale maxaan ku iraahdaa dadka garanaysaan oo maanta jooga alxamdulillah aadan baxnaan dad badan baa jiray kuwaas ina Cali Giire waa run marka magacyoodii ma wada tixi kare laakiin waxa ka mid ahayd marwada maanta joogta dalka marwada kooyad Aamina Waris ina Axmediyay ina adigu way badnaayeen marka dalka Ingiriiska ayaa nasiib u helay inaan halka deeq waxbarasho u tago waxaan joogay 7 sanadood
waxaan soo bartay cilmiga nurse ama kalkaaliye sare baan noqday dabeetana takhasusiyaan sameeyey dhalmada waxaan kaloo sameeyey takhasus kale oo maamulka iyo maareynta ah 1961 ayaan wadankeena ku soo noqday yaanan iloobin dadkii halkaa wax ku baranayay ingiriiska ee walaalkay cali qaadi dr cali qaadi walaalkayga kale maxaan ku iraayay cabdilaahi diiriyac cabdi oo markii dambe aanu United Nations ka wada shaqeynay marka dad badan baa halkaa wax ku soo bartay dadkii tayo waxbarasho ee wanaagsan soo qaatay nasiib waxay u heleen inay noqdaan dadka halkaa wax ku soo bartay 61 baan soo noqday ingiriiskii markaa wuu baxay cisbitaalka Hargeysa ayaan ka shaqeeyay 63 ayaa markaa alxamdulillah adna waxaad ka mid ahayd hablii ugu horeeyay matalan afka Soomaaliga ku hadlay ee matalan wax bartay ayaad ka mid ahayd adigu marka bal dhibaatooyinkii waqtigaas waad galaysaa waqti adag buu ahaa waqtigaad wax baratay dhibaatooyinkii inkastoo dalka Djibouti haddana bal dhibaatooyinkii kugu weynaa wadanka maxaa ka mid ah dhibaatooyinka dadka iska badan waxaan loo baranin bay ahayd oo inaan farta taqaanaa waxa loo arkayay de waxaan qurxooneyn waxa laga cabsi qabay inay ama fool xumo keento waxa laga cabsi qabay inay reerka ceeb soo jiido wixii aan la garanayn waa laga baqaa laakiin waxaan nasiib wanaaga xusata wax dhacdooyinkii ugu badnaa ee ka soo gaaray waqtiga waxa hooya loo iman jiray iyagoo sidii tacsiil loogu imanayo oo kale ayaa loogu iman jiray markii iskuulka la diray loo jiray hoogtay oo baaday ma maanta sana kugu dhacday ma inantaadii baad iskuul u dirtay marka inay baroor iyo maxaan ku dhahaa iyagoo weer inantii waa la soo gowracayaa iyo bad baa lagu soo tuurayaa oo kale sideed bay u tacsiinayeen waxaan garanayaa markii aan wadanka ku soo noqday 22 bilood bay igu qaatay markaan cisbitaalka Hargeysa ka shaqeynayay in dawladii markaa jirtay ee xamar fadhiday inay mushahara iyo ogolaato 22 bilood ayay ku qaadatay haddaan kuuga ahaan la mushahar baan ahaan la haddaan tan dhulka safaysa ahaan la waa la ogola laakiinse waxaan ahay qof sarkaala oo darajo sarkaal mutaysan oo gabadhii Soomaaliyeed ugu horeysay darajo sarkaal mudan ayaan ahaa mushaharkayga ma laga soo qaadaa la garan waayay 22 bilood bay igu qaadatay oo mushahar la'aan ku shaqeynay oo anigu dareyskayga anigu tolanay oo aan hawsha beriga aan qabtay 62 ilaa 63 hawla marka dhakhtar ka shaqeeyay sidii ku arkay dad waa la idaawo waxa la qaadan jiray dad dareysa sidee lagu arkay waa la idaawo shay iman jiray waxa la jiray baxday laagtan hawshii dhaqaatiirtii ku ingiriisku qaban jireen qabanaysa bal hadda siday tahay iyo waa la idaawo shay iman jiray markaas kaaga darna gaadhna aan wada markaas kaaga darna aan ahay qof hadashade waaga gabadha yaabay haduu ciyaalkay daba ordi jiray oo bilayskay daba ordi jiray oo kala miftaax baa laga qaadi jiray aadan dhakhtar baa loo tagi jiray loo jiray aadan waa dhakhtarka gaarigaaga ha u dhiibin maanta inantaadoo gaari wadaan oo aragnay markaas inuu joogo hadaan u dhiibo waayo iyo markaan England ugu tago keeda igu qaadi jirtay maxaan kayga ugu diidaya marka waxay had wax la yaab leh anna waxaan isku day jiray in waxa aan sameynaya ay mar walba noqdaan waxaan ceeb ahayn laakiin si xaq ah gaari wadadii ceeb maaha xaqna waan u lahaa marka xaq darro in laga joojiyo maan ogolayn wax ceeb ama halis in aan keenana de maan ogolayn saasan ku soo jiidan jiray waxaaga inqilaabka uu ka dhacay gobolada waqooyi ee wadan nooga way waxaan ma inqilaabku wuxuu ka dhacay 10kii bishii December 1961 aabahay aadan dhakhtarna wuxuu dhintay bisha 1deedii December 1961 anigoo markaas uu geeridii aabo ka soo baxay ayaa inqilaab ku dhacay wuxuu ka dhacay dalkii Somaliland ee Ingiriisku isticmaalin jiray aroorun baan ku soo toosnay military baa haystay sida dhabta cisbitaalka ayaaba la iga yeedhay oo leeyahay gabadh baa dhibaato dhalaysa baa dhibaato la kulantay laakiin kuma iman karno oo dalkii military baa haysta sidee military waa haystaa xalay sooti dalku nabadaha waxay walahi wax dhacay garanayna laakiin cisbitaalkii iyo magaaladiiba waxa ku wareegaya ciidan baa ku wareegaya taangiyaa ku wareegaya ciidan dareys gashan dhar gashan baa ku wareegaya marka anagii ma soo bixi karno gabadh
dhiig baxaysana way joogtaa waan ku baahanay marka cisbitaalka ayaa waxa lahaa albaabkii dambe ayaan ka soo galay hawshii baanu iska wadanay waxba maqli mayno laakiin in wadooyinka gaari baabuur bilays iyo military iyo wax meesha ordayaan waanu dareensanahay cabaar 12 ayaa markaa xabadad bilaabeen xabadihii xagga shacabkii ka dhacayaan waa xabadan naga durugsan oo cisbitaalka ka durugsan cabaar dabadeedna waxaana loo keenay dhaawac laba qof oo dhaawaca markaa la keenay waxay ahaayeen nin isaguna dhintay isagu dhaawacii ku dhintay oo askari ah iyo Xasan Kayd oo dhaawaca oo ay boodada kala dhacday oo dhiig baxaya ayaa la keenay labadaas ayaa markaa theaterka la soo galiyay si askarigana calooshay ka baxday xagaa kelida askarina ragii inqilaabka dhaliyay uu kamid ahaa wuxuu ahaa anigu markaa inqilaab in la dhigay iyo in ciidan shisheeye lala dagaalamay iyo cidii xabadahan isku ridaysay midna garan mayno waxaan uun aragnay in dadkan dhaawacay la keenay iyo askartan faraha badan ee cisbitaalkii qabsatay ee daba guuraysa dhaawacan waxa markaa theaterka la keenay theaterkii baan rabnaa in markaa nabaradii dhiigii la joojiyo waxa dhacay markaa in askartii kuwii markii hore soo qaaday maahay qaar kale ka daba yimaadeen oo yiraahdeen meeshaan ku dilayna halkaas ay markaa ay halkaas ayaan ku fahamnay cisbitaaladuna waxay leeyihiin sharci bay leeyihiin cisbitaaladu waa magan masaajidadu waa magan marka hadii aad eriyanayso qof oo ama masaajid ka soo galo ama uu ka soo galo meel ilaah lagu caabudo ama cisbitaal soo galo way xabadaada celisa oo dad badan oo kale ayaa cisbitaalka jiifa marka uu qofkaas cisbitaalka ka baxo ee laga soo fasaxo marka maxkamad iyo wixii la doonayay ayaa marka laga yeela laakiin cisbitaal qof lagu dili karo anagii marka waxaan dadka qofkan ma dili kartaa waxay noqotay markaa in muran meeshii ka yimaado oo ay askartii aanu isjiijiidno waxay noqotay markaa inaan anigii isku tuuro oo hada way dilaha dabada ilaa anagu magan noo yahay hadaa dilaysa hadana dila waxay noqotay markaa in kii murmaye laha waxbaan dilayaa inuu anigii markaa qoriga xagiisii dambe oo igu dhufto anna xagii dhaawac ayuu manday isu sii riday waaduma xasakeed baa isku duubtay si aan xabad ugu dhicin way qofku waa qof cisbitaal jiifa hadii la bilaabo in dadka cisbitaalada jiifa laga daba yimaado la toogtoogto waxa lumaya heshiiskii maganta oo waxay noqonaysaa jaantaar rogan cidii cisbitaal soo gasha iyo cidii masaajid soo gasha iyo cidii meel magana soo gashaba in laga daba yimaado way wax walba xeer iyo nidaam bay leeyihiin ma aha oo kaliya Xasan Kayd wuxuu ahaa qof aan garanayo oo aanu soo wada kornay oo aanu isku arday ahayn laakiin se waxa weeyaan waa mabda'iyan waa waajib waa caafimaad weeyaan way labi lix markii laga ku dubno waqti badan ayaad soo qaadatay in taariikhdaadu way badan tahay in halka markaan halkaasaan ku soo koobay adigu nimankii waa la qalay waa la daweeyay 3-4 cisho dabadeed way la dhoofeen xamar bay la tageen waxa kale oo isaguna maalintii galabnimadiina loo keenay oo isagu meel uu ku dhacay laga soo qaaday meedkiisa Allah yarxamo حسن عبد الله سعيد عابد kamid ahaa ciidanka ragii inqilaabka dhigay oo intuu meel ku dhacay halkii laga yimid oo soo wada quraanka gashay oo soo yara dartay soo dhig baxay oo ayaa dabeetan loo keenay isaga meedkiisii baan loo keenay saraakiishu kamid ahaa ciidanka militariga ee dhigtay kuwii kale ee dhigay malaha waxa laga soo qabqabtay meelahaas ina Algeria baa kamid ahaa waxa kamid ahaa kuwii burco joogay waxa kamid ahaa Congo awil burco joogay iyo Congo iyo meelahaas kala joogeen dhowr iyo 20 bay ahaayeen adigu way badnaayeen adigu kuwa anaga Xuseynaya waxaan kuwina loo keenay cisbitaal meelihii adigu kuwa anaga Xuseynaya waxaan kuwina loo keenay cisbitaal taariikhdaadu way weyn tahay in mar ayaan ka qaadi doonaa in maxay in doole la sigaara in hadii gudubno
isbitaalkan iyo balka noga warantaa dhawaan socdaal baad ka timi AD meydii meelihii aad soo martay iyo waxyaabii ku way bal horta isbitaalkan waxa ka waramaya way isbitaalka waxa waa nolosheeda ka badan isbitaalkan waxa niyeystay inaan anigu ku jira inaan isbitaal dhiso waxaan u niyeystay la darxumada aan arkay dumarka iyo caruuraha soo gaara ilaa yaraanteedii meelihii aan u shaqeynayay marka waxaan niyeystay in yoonka ayaan aan mar walba isbitaal hagaagsan ummadda u dhisi doono kan waa kii labaad waad ogtihiin xamar baan ka bilaabay lacag badan baa iga gashay dhul badan baan soo dayray dhismo badan baan galay qalab badan baan geeyay laakiin sidee dagaaladii Somaliland iyo Soomaaliya awgood ayaan ka imid kaasoo halkaas ku baaba'ay kan wuxuu noqday markaa mid sugay intii aan hawlgab ka noqonayay haddana aan mar kale soo xamaan urursanayay wixii aan xoogsaday iyo wixii aan ka maarmayay aan soo lacagaynayay ayuu sugay waxaan bilaabay markaan 1997 aan hawlgab ka noqday shaqadii United Nations u hayay aan qaatay xaqaygii aan qaatay wixii aan ku lahaa fasaxyo iyo waxaan ku lahaa soo qaatay hantidii wixii aan ka maarmayay aan soo iibiyay soo lacageeyay wada wax March 2002 waa furtay imisuu socday meeshan waxay meel gudaafado banaan marka waxa weeyaan riyadaada waxa kamid ahayd waan xasuustaan wariyaashii ku joogay waxa kamid ahaa inaan meeshan aan doonaya xataa guri aan habeenkii aan seexdo oo residence waliino ilaahay ducada waa iga aqbalay isagaan u hoydaa isagaan deganahay haddii umulahayga uu qaado dawayno anigana ay qaadaa isagii baan deganahay alxamdulilah waxaanu iminka aanu maraynaa 13 sano iyo ziyaado maxaad ka qabatay waxyaabaha la mudan kare ee maanta la taaban kare ee waddan ugu soo kordhisay ee matal ambaa wuxuu isbitaalkan waxyaabo badan buu dalkan u horseeday hana iga hor dhicin wada yara sugaysa ha iga hor dhicin isbitaalkan waxyaabo badan buu horta u horseeday dadkeena in ummadda wax loogu deeqi karo aan laga rabin macaash way isbitaalkan kama raba macaash waa isbitaal samafala sida aad u ogtihiin reediyada waa nagan idinka uga yeedhna ummadaha SMS-da lagu diro dadkan gobolada looga yeedhay ee bilaashka loogu daweeyo isbitaal kale oo sidaa wax loogu qabtaa dalkeena ma jiro wuxuu kaloo horseeday in isbitaalkan noqdo isbitaal shaqaalaha caafimaadka lagu tababaro oo si tayo leh loogu tababaro shaqaalaha gobolada Soomaaliland ka shaqeeya oo dhan waa shaqaale ka soo baxay halkan waa meel aan ku tababaro macallimiinta goobaha kale ee caafimaad ee tababaradu ka socdaan iyaguna qaar ka shaqeyn kara lagu tababaro wuxuu noqday isbitaalkan meel daweynta oo heer tayo leh dalka loogu bilaabo wax loogu qabto waayo maanta meesh isbitaalada kale waxay noo soo diraan dad marka ay ama farsamadooda ay wax ka garan waayaan ama ay u waayaan qalab ama farsamadii wax ku qaban lahaayeen halkan ay isugu wada yimaadaan marka isbitaalkii meel aan jirtay laga dhisay meel markii hore darxumo iyo waxa lagu yaqiinay military iyo maxaan ku idhaa banaanbax iyo lagu sameyn jiray lagu dul dhisay maanta October iyo banaanbax iyo salaantii wixii lagu qaban jiray maanta wuxuu noqday meel lagu soo cararo oo dalka dabadiisaba looga yimaado dad badan oo Soomaaliya ah ayaa yimaadeen ku daweeyna waa dad buka arday badan oo Soomaaliya ka timid baan wax ku baraa waa caruur wax baranaysa sharciga iyo qawaaniintana uu hoggaansan day isbitaalka wuxuu isbitaalkii noqday maanta dhowr iyo 16 iyo in ka badan oo caruur baa ku dhalatay waxa lagu daweeyay isbitaalkii umulaha oo kaliya muu noqonay waa isbitaal guud oo rag iyo dumar badan way jiifaan 18,000 oo dad oo kala ah oo umula aan ahayn ayaa lagu daweeyay isbitaalkan jiifay oo ama lagu qalay ama wax lagu fariintan aan rabo inaan ummadda gaarsiiyo caruur badan baa jirto madaxweyne ku dhalata oo biyo madaxa kaga jiraan waa amar Allah waa abuurta Ilaahay laakiin si haddana Ilaahay waxyaabo inoo baniyaamiyo daweyn ayuu ina baray ina tusay caruurahaas madaxyada waaweyn leh adduunka meeshay doonaan geeska Afrika way nooga yimaadaan halkan aan ku daweynaa waxa biyaha nidaam baa jira qalliin baa jira gaar ah oo loo sameeyo waan u sameynaa bilaash baa loogu sameeyaa qalabka gala bilaash baa loo geliyaa
jiifkooda raashinkooda daweyntooda xanaanadooda waa bilaash 2 sanadood dambana waa la sii socdaa caruurtaas waxaanu siinaa card ay ula tagaan meeshii ka yimaadeen ula tagaan oo dhakhtarada xagga jooga idan qofkii 2 sanadood kuma dul fadhigi kareen ay kula socdaan oo ay bogsigiisii qofkii ula socdaan haddii wax ka garan waayaan wayna la soo xiriiraan marka halkan aanu ka tilmaanaa Djibouti way nooga yimaadaan Ethiopia way nooga yimaadaan Soomaaliya ayay ugu badan yihiin kuwa ka yimaada iyo gobolada Somaliland oo dhan way ka yimaadaan bilaash baa lagu daweeyaa gabadha isku faruurantay kaadu ka faruuranto ama saxruur ka faruuranto bilaash baa lagu daweeyaa caruuraha faruuran ee ku dhasha faruur ama faruurtu bushimaha tahay ama dhanxanaga tahay iyagana bilaash baa loo daweeyaa waxa kaloo aanu daweynaa dawa marka aan ka tago cuduradan kale ee kaneeco iyo maxaan kale iyo xumad iyo qufac iyo waxa laga tago ee joogtada iyagu caruuraha ku dhalata lugaha qalooca caruur badan waa ku dhalata iyagana waa la qalaa dardaaranka aan rabaana waxa weeyaan caruuraha lugaha qaloocan iyo caruuraha madaxa waaweyn intaanay 2 sano gaarin waa in la keenaa dawadooda intaanay lafuhu adkaanin waa in la keenaa oo waa inaan la gubgubin oo aan la tooftoobin oo aan la tiifin dhibaatooyin iyagoo loo geysan hal la keeno wixii loo qabanay markaa loo qabto iwaaga intaas waxa weeyaan waa dhambaal inay gudbinayso adni oo ay leedahay caruurta iwaaga bal dhinaca siyaasadda aan adnaa eegno waxa lahayd in badan imikana kama harsanido saaxado badan oo in waa tagtay matalan European Unionkii oo kale oo waxaad ka mid tahay shakhsiyaadka iyadoo lagu ammaanaynin Somaliland u darban marka la eego هذا يصير اعتراف كذا كده ده لا يصير الدنيا لواقع ده قارسيله وهاج بل دوان وحى تواجد أو تجربي إنك خطبة قيمة لا مش هكذا سي محا خطبة داسي محا كم إذا نحر كذا Somaliland waxaan ugu hadlaa waan ku qanacsanahay Somaliland waxaan ugu qanacsanahay xornimada Somaliland waxaan ku qanacsanahay Somaliland inay xaq u leedahay in la aqoonsado ayaan ku qanacsanahay waayo de shuruudihii dalal lagu aqoonsan lahaa oo dhan shuruudihii waynu buuxinay waa dalgaya waa dalkii ugu da'weynaa Soomaali meel deganba Somaliland ba ugu da'weynoo ka ugu hor isticmaal qaatay Brussels baan tagnay waxaan wada soconay wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka qorsheynta qaranka iyo qodbad baan ka jeediyay walow nasiib darro aanan maqlin oo aanan ogeyn in la soo daayay in kale laakiin waxaan oran karaa qodbadaha taariikhiga ah ee wadankeena aan ka jeediyo waxaan oran karaa waa kuwii ugu qiimo badnaa bay kamid ahayd kulli meelun bay ku jirtaa oo arkaayadaas iyo kaydadkaas kulli laga helaya waxa qodbadan nuxurkeeda wuxuu ahaa taariikhda Somaliland aan ugu doodaya aan leeyahay han lagu aqoonsanina gardaro han lagu aqoonsanina iib han lagu aqoonsanina jacayl waxaad lagu aqoonsataan xaqa Somaliland ay u leedahay la aqoonsado oo ay kamid yihiin shuruuda iyo taa aan ku mutaysanay aqoonsi waxa kamid ah haddaad cilmi baaris samayso maanta website-yada iyo cid walba u furan dalalka adduunka Afrika fadhiya arday sababa fadhiya 53 dal ee fadhiya African Union ka fadhiya waxaynu nahay dalkii 12aad ee Afrika xoroobay 42 dal oo maanta African Union ka fadhiya oo maanta la leeyahay ka soo taliya Somaliland wixii laga yeelahaa markaynu inagu xornimadeena qaadanay iyagu weli mustacmarad bay ahaayeen marka dalal inaga da'yar oo isticmaalkii naga dambeeyay oo aan waxba ka ogeyn taariikhda Somaliland inaanu ka da'weynahay inaanu ka mudanahay in kale ayaa maanta naloo barya oo leeyahay Somaliland aqoonsada waxaan u arkaa gardaro waxaan u hadlaa Somaliland oo leh adduunka dal wanaagsan oo nabada oo dawlad leh oo dastuur leh oo sharci leh oo isu hoggaansan oo xisbiya leh ayaanu nahay dal wanaagsan oo adduunka ku soo biiray baanu nahay waxaad ahayd wasiirkii arrimaha dibadda ee Somaliland xilligii 2003 ilaa 6 waqtigaasi
iyo maanta bal marka diblomaasiyadii shatalkii ay sameynaysan iyo duruufihii jiray bal hadda adiga oo si saraaxada uga hadlaya bal hadda isku qiyaas horta diblomaasiyadda horta waa wax isbiirsada waa sida koofiyada la tolo ayaa kaloo meeris baa lagu daraa waxaan anigu aan odhan karaa waxaan si hagar la-aana oo dardar xoogli ku jirto ayaan hawshaa u galay waxaan u malayaa dalal badan oo aan weli mar waqtigaa la gaadhin ayaanu fariinteeda aanu gaadhsiinay doodayada gaadhsiinay ilaahay af buu i siiyey muranka wuu i baray cilmigii wuu i baray xuquuqul insaankana dalalka aanu la murmayna ayaana baray marka wixii ayna bareen ee doodii ayna bareen iyo xuquuqul insaankayna dareen ayaan soo hordhiga oo naa goormaad sax ahaydeen markaa anaga na barayseen mise marka aad anaga naga xidhaysaan marka waxaan odhan karaa dalal badan dhowr ma tirin karo hadday dalalka adduunka waanu qaybinay Maraykan dhowr jeer baan tegay England waan tegay dhowr jeer France Switzerland Germany Holland Belgium Denmark Sweden Finland Italianiga marka maxaa la taaban karayay waaga ka soo qabatay waxaan horta mapkii baan u saaray in Somaliland waxa taasala taaban kariya horta inaanu jirno dal jireenaw nahay ayaa horta la aqoonsaday waxaanay noqotay seeskii kuwii iga dambeeyay wax ku sii dareen waxaan kaloo aan waqtigii aan joogay aanu sameynay oo weyn waxaanu soo marti qaadnay African Union gudoomiye ku xigeenka Patrick Maximana gudoomiye ku xigeenka African Union iyo guddi xog raadisa waa tii halkan timid iyaga markii dambe xogtii markay noqotay mid cad in Somaliland ay xaq u leedahay waa tii xagga lagu caburiyay laakiin waxay noqotay tallaabo xoog leh oo aanu keenay waxaanu ka doodnay South Africa oo ah caasimad weyn waxaanu ka doodnay Kenya waxaanu ka doodnay Uganda waxaanu ka doonay Tanzania waxaanu ka doonay Zambia dadka imika maanta dad badan waxay yiraahdaan adnay diblomaasiyadeena amba siyaasadeena arrimaha dibadda dadka qaar daawanaya oo midaan amba xisbiga mucaaradada ha ahaato amba dadka kale waxay yiraahdaan diblomaasiyadeena aad bay u leedahay gaar ahaan marka la eego dalalkan jaarka oo aynu nahay qura bal sideed u arkaysaa aad u miisaanta adiga oo midaan khabiir ku ah xiriiradii wax la leeyahay si way dabacsiin sideed u aragtaa bal horta xisbiyada mucaaradkii waxay doonaan way ku hadli karaan dadku waa xor waxa horta habar fadhida ligdan wax uga fudud habarna dee waanahay in aynu intaa dardar ka sii xoog la sii gelinana waan jeclaan lahaa waxaan jeclaan lahaa in mar waxa weeyaan horta waa inaad jirto is-sheeg taa waan soo qabanay adduunka meelaan Somaliland laga aqoonin maanta ma jirto kuwa istiijinaya moogiye waxaan jeclaan lahaa sanadkan maanta Afrika sanad baan joognaa inay noqoto sanadkii aanu xal siyaasadeed dalalka aynu jaarka nahay ka raadinayna inay noqoto ayaan jeclaan lahaa waxaan jeclaan lahaa inaynu bilowno colka warfma lagu dayay maadaama aynu xaq leenahay oo wax xaq daraa aynaan cidnaba ka rabin oo aynu xuduudihii Afrika loo qoondeeyay 1883 aynu wali degannahay oo aynaan dhul dad kale leeyahay aynaan ku dooday intii Talyaanigu lahaana waa taa Soomaaliya cid kuma muranto cidii Somaliland inaanay muran gelin dadkii degan inaynu markaa wada hadallo iyo heshiisyo daakhiliya iyo dalkaynu jaarka nahay baan jeclaan lahaa wada hadallada sideed u aragtaa wada hadallada imka way sare taageen laakiin adigu maxaa talooyinahay badaas leedahay dhammaan arrimahaas waa soo jeedinaysaa inay socdaan ma jeclaan lahaa waxaan jeclaan lahaa inay noqdaan laba dal oo walaalo oo kaliya waa Somaliland iyo Soomaaliyana aanay isbidin inay Soomaaliya leedahay oo deemaba laha anagaaba ka da'weyna Soomaaliya aanay isbidin in Somaliland tahay gobol iyaga kamida deemaba nihiinay ilaa baanu ka da'weynahay waa dhalaankii hooyadii dhalmada baray Soomaaliya way iga da'yar tahay taariikhda hadii la sheego in 5 maalmood ayuu matalan 5 mirid labada mataane soo dhasha ka 5 mirid soo horeeyay ayaa curadkii 5 maalmood buu matalan ay marka 5 mirid ka weyn 5 maalmood oo dhan ayaa baanu ka horeeynay hal daqiiqo haday tahay ana curadkii Soomaaliland ba curadkii
dhinacii siyaasadii aan ku dhahay maanta siyaasadda waad soo gashay in badanood ku jirtay maanta siyaasaddii halkaad digtay waxaad saad iga warantaa maadaama aad ka mid ahayd haweeneydii ugu horreysay golaa wasiiraa dhex fadhiisata waagii riyaale bal hadda ka waran in dareenkaaga maanta horta waan ku faraxsanahay in dumar kale ay soo fadhiistaan golayaasha horta anigu helmadaa siyaasi horta maba jeceli wayda maba ihi anigu siyaasi ma ihi waayo haddaan siyaasi yahay waxyaaba aanan waxaan doonaan ku hadli lahaa أنا waxaan ahay qof mabda leh dareenkaygu waxa weeyaan Somaliland way kobocday Somaliland way kortay intii aanu ka rabnay wali ma aanu gaarin oo dhowr iyo 10 inaanu gaadhno ayaanu jeclaan lahayn oo wali tiigsanayna wanaanu heli doona oo cidna ka baryamayno hadaanu haweenahay laakiin horta way kobocday oo xabadii ama labadii aanu ahaan jirnay waanu ka yara badanay laakiin waxaanu jeclaan lahayn maadaama haweenku wax ku soo beerin karaan siyaasadda maadaama ay aqoon ku soo beerin karaan maadaama ay cudud ku soo beerin karaan maadaama ay af ku soo beerin karaan in haweenkana fursadooda ay dalkooda wax ugu qabanayaan loo ogolaado oo loo sii daayo oo lagu soo dhaweeyo waxaan xusuusnahay madaxweynayaal oran jiray haweenku waa inay iyagu soo dhaxsadaan cidina ku siin mayso sax daaba inta uu soo saarto hadiyad ugu siin mayso waxaan rabaa madaxweynayaashaasu inay xusuustaan in aanaanu in haweenka Soomaaliyeed aanay sugaynin in sax daab loo keeno ay soo dhacsan doonaan siyaasiyiinta taageerta haweenkuna ay noqon doonaan kuwa ka mutaysta codsi iyo codka ay siinayaan waxaad ogtahay haweenku inay ka badan yihiin hadii jeer codka waa cududa doorashooyinka yaa safka gala xisbiyada yaa meelaha boodbooda yaa hor fadhiya yaa calanada u sida xawli haweenka marka siyaasiyiinta cod rabtaa waa inay cidda codku ku maqan yahay ka mutaysata oo ka soo dhaxsata laba arrimood baan inaan jeclaan ka waraysto BBC-da waraysi aad siisay bari waxaad ka mid ahayd saddexdii haweenka ahaayee matalan adiga iyo wadamada dhibaatada ka dhacay gaar ahaan waliba Soomaaliya iyo Somaliland marka bal hadda arintaasi ka waran iyadoo filina laga sameeyay wax weeyaan waa documentary buu ahaa laba haween oo Soomaaliya degan oo dhakhtarada Xaawo Cabdi aan saaxiib nahay iyo inan yar oo kale oo aan garanay laakiin ina ma sha Allah hawl wanaagsan qabatay iyo aniga ayaa laga sameeyay documentary waxaanu ujeedadiisu waxay ahayd in dhibaato kasta oo jirta haweenku ay helaan fursad hadii ay damcaan inay ka soo gudbaan dhibaatada oo waxtar umada uga qabtaan inay sameyn karaan marka dhiirigelinta haweenka ayay ahayd waana ku faraxsanahay hawsha weyn ay Xaawo Cabdi ay qabato ma sha Allah waa gabar nafteeda u hurtay hawl badan qabata inantan yar ee dhawaanta timina waan ku dhiirinay inay hawsha halka ka sii wado xuquuqul insaan raadiso caruurahan yar yar ee la duufsado ee qoryaha loo dhiibo ee wacdil la yiraahdo inay waxbar aqoon iyo waxbarasho inay u soo jiido warna waa jirtaa waana jeclaan dumar badan oo iyaga sheekadooda mudan tahay in la sheegayo Somaliland degan insha Allah iyaguna fursad ayaa loo heli doonaa in iyagana sheekadooda wax laga ugu dambeyntii marxuumkii in Xaaji Ibrahim Gaal hadda la in waxa lahayd marwadiisii in meelo badan oo dhinaca siyaasadana waa isla soo marteen in waagaasi oo muddada badan oo ahaa kaalintibaad ka qaadan jirtay baladu kullu waxa la yiraahdo dumarku had iyo jeer way kaaliyeen ragoodii horta alxamdulillah maxamed Xaaji Ibrahim Ilaahay naxariis jannah siiyo horta qof aad iyo aad u maskax wanaagsan buu ahaa wuxuu ahaa qof horta maskaxdiisu ay aad iyo aad siyaasadda ugu furan tahay talo marmar wuu i weydiin jiray laakiin se maan hogaamin jirin tiisuu wax ku dhaqi jiray sasabasho warno dhowr qof waan ka sasabay dhowr wax waan ka maslaxay kaalinta haweenku galaan kulli waxa la yiraahdaa siyaasadda haweenku waxa la yiraahdaa carabtu maamada jirta nin kasto adag yacni waxa weeyaan gabadhiisa ka dambaysa ayuu baa iyadoo ma hadda ixtiraamkiisu kuna meesh jira way mar haddaad odagaaga ku kalsoon tahay inay tiisu ku filan tahay oo garashadiisu ku filan tahay waxyaabo badan oo laga yaabo adiga aan ku muuqan oo ka warhayo inay jirto horta ixtiraam ma meesh jira laakiin haddana sasabasho iyo maslaxaad kaalinta ugu weyn ee marwada koowaad ay leedahay wax weeyaan
maslaxaad iyo dad u soo jiidid ama talo waa lagu weydiino waa runtii dad wada degan baa tihiin oo waa isagoo careysan buu imanoo wuxuu waxaasoo marka maslaxaad bay ayay u badnayd laakiinse qof maskaxdiisu aad ugu filan siyaasadda ma kusoo noqonaysaa haddii soo diiday haddana kaalintii haweenka matalan warka waxa weeyaan waa loo baahan yahay wasaaradda qoyska taala meelo badan baa maanta ku bannaan talooyin baa ku bannaan maya oo waqti uma hayo ciddii dalka hogaaminaysa iyo wixii dalkayga Soomaaliland maslaxad u ah waqti kasta habeen iyo maalin diyaar baan heegan ugu ahay inaan wax ugu qabto laakiinse maskab siyaasadeed waa maya adna bal su'aasha aan ku soo gabagabeynay jecelahay talaabada ku soo gabagabeynay waxa weeyaan maanta kulley waxaad ka mid tahay dadka u danqanaya wadanka oo maanta halkan kaga jira isbitaalkeedan aan meel kale diiday inay ka timaadee ay ka soo degaysa xagga sare seexata bal haddaba muranka siyaasadda maxaa talooyinahay adigu maadaama aad ilaa waagaadee aad in oran karo inaad arrimo siyaasadeed ku soo dhex jirtay siyaasaduna waa nolosha maxaad kula talinayd talooyin waxa lagu maaha marka maroodigu islaayo dooga ayaa ku baabaa Soomaaliland waa curdan jirida waaweyn ma lihin sida doogeen u jilicsannahay waxaan lahay isu tanaasul ayaa dalka u baahan yahay in la isu xoog sheegto iyo wax maslaxad laga gaari kari lahaa in lagu murmo oo dalka lagu yeeleeyo ummadda Soomaaliyeed ma qabato siyaasiyiinta waxaan leeyahay haday mucaarid yihiin iyo haday muxaafid yihiin way anigu midnaba mihiin ee waxaan qof Soomaaliland ah aanahay kana kuma jiro koorna kuma jirin waxa la isu tanaasula oo xal ku gaar aad heshiis ku wada noqotaan si dalka loo hogaamin lahaa oo wax yar oo muran yara dalka ha ku duminina waxaan u maleeyahay waa wax lagu murmay waa 3 bilood 3 bilood hadii xagga loo jeediyo hadii xagga loo jeedo wax weyn bedelmayso waxaan leeyahay xalka gaar oo dad waaweyn baa tihiin mas'uuliyad baa idin saaran muranka halka ha gaarsiinina burburka halka ha gaarsiinina madax adayga halka ha gaarsiinina maslaxada dalka eega oo haysla foortaabanin oo horan mar hadii kuwaas sida ay yiraahdaan waa muqaddis hadii kuwaas sida ay yiraahdaan waa muqaddis wax muqaddis ma jire wadankana muqaddisa waagaag aad iyo adaya maadsan tahay in adna iyada oo taariikhdeeda aanan ka dhargeynin hadii aan wadno ilaa caawa iyo way aragnimadeeda ay dalka soo gudbinayso